بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهي بان محطله إن قارسيي رمضان وفضل وينو إلهي نقوم النيستي dadkeenna caafimaadka qaba ee ilaahay nolol ku gaarsiiyay Ramadaan. Alxamdulillaahi rabbil aalamiin. waxaynu bilaabi doonaa casharo taxana ah oo ku saabsan axkaamta soonka qaar laga soo xulay. waxaanaynu ku bilaabaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi bisha markaa aragtaan ay bilato sooma. wuxuu alla yidhi caza wajalla faman shahida minkum ashahra falyasumhu. ciddii idinka mid ahee aragta bishu waa inay soonto buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka macnaheedu waxa weeye arag ku sooma, marka aragtaan sooma buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala. rasuulkeennina calayhi afdalu salaatu wasalaam wuxuu yidhi sumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi fain gumma calaykum فأكملوا عدة شعبان 30. wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam arag ku sooma aragna ku afura micnihii ku ciida. haddii ay noqoto ramadaan maalmaha aa filaysaan bilowgeedu inaa arki weydaan oo ay idinka qarsoonto roob daraaddi daruuro ay noqoto ama si kaleba aa u arki weydaan, wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam dhammeeya shacbaan 30 maalmood. sidaas darteed rasuulku calayhi afdalu salaatu wasalaam shacbaan markay bilanayso ayuu la socon jiray si haddii ay uga qarsoonto bisha bilowgeedu oy daruuro ama roob noqoto uu u dhammeeyo 30kii shacbaan oo aan shaki kaga jirin. wuxuu sii eegi jiray shacbaan. inagu maantase dadka inta badan ramadaan bilowgeedunba ahmiyadda la saaraa oo marka loo malaynayunba la eega. caaisha radiallahu canha ayaa inoo soo warisay daliilka inoo sheegaya in uu rasuulku shacbaan sii ogaan jiray. waxay tiri radia allahu canha kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yataxafadu min shacbaanin maa laa yataxafadu من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وعيت رسولك صلى الله عليه وسلم أرقى بشر شعبان وحو أحفد جري وإلى شن جري سيان وإلى شنين بلها كلام دبتنا رمضان هدي بلا تو سومي جري الله أركو هدي كلنا shacbaan buu 30keeda cisho dhammayn jiray. asxaabtii rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaasay ku dhaqmi jireen noloshii rasuulka macnii intuu noolaa iyo noloshiisa ama dhimashadiisa dabadeed labadaba. ibnu cumar radia allahu canhuma oo inoo sheegaya in siday u ilaashan jireen ayaa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a ayaan ku biiray dadkii oo bisha ramadaan eegaya inay bilatay. dabeetana waan arkay rasuulkii baan u sheegay sala allahu calayhi wasalam. rasuulkii dadkii wuxuu amray inay soomaan, isagiina wuu soomay. macnii sidaasay u ilaashan jireen. dadku meelay dhaadheer bay u bixi jireen asxaabtu radia allahu canhum. inaguba sidaynu samayn jirnay berigii hore. iminka dadka inta eegtaa waa yartayba. marka ilaahay sidaasuu ina faray iyo rasuulkiisiba sala allahu calayhi wasalam in arag lagu soomo, aragna lagu ciido ama lagu afuro oo bisha ramadaan lagu dhammeeyo. aragtidaas uu ilaahay ina amray iyo rasuulkiisuba waxa weeye ma aragtida 3 qof markay arkaanba mise waa aragtida 100 qof
mise waa aragtida ka badan, waa goorma goorta aragtida maxay ahayd aynu sugaynaa, maxay aragtida ku sugmaysaa 3 qof 10 qof 100 qof. waa arrin ilaahay inoo sahlay, aada u fududeeyey. waxay diinteennu ina faraysaa, rasuulkeennu ina farayaa calayhi salaatu wasalaam, aragga qof keliya oo caadil ah, la rumaysan karo hadalkiisa, lagu kalsoon yahay wuxuu yidhaahdo. haddii uu yidhaahdo waan arkay, khalaas bishii ramadaan waa inoo bilatay. sidaas ayay qabaan culimo badan oo ay ka mid yahay imaam ashaafici, imaam axmed ibnu xambal, salafu saalix qayb badan oo ka horeeyey shaafici iyo axmed ibnu xambalba oo badan, iyo culimadii dambe maxay ahayd shalay u dhimatay sida bin baas iyo ibnu cuthaymiin raximahumullah. dhammaantood waxay daliilkooda ku salaynayaan xadiidka cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhuma uu kelidii arkay iyadoo dadku eegayo, dabeetana rasuulkii dadkii amray inay ku soomaan aragga cabdullaahi ibnu cabaas oo keliya, isagiina ku soomay. taasoo ah arrin la mid ah aadaanka oo maanta markay ramadaan tahay, mar allaala markaa aadaanka aynu maqallo qof keliya addimaya, laakiin inteenna kale oo dhamme waa cunaynaa. marka aynu soonka bilaabaynona, markii la addimo soonku uu inoo bilaabmay oo wixii ka horreeyey ayuunbaa wax la cuni karaa. aadaanka allaahu akbartaa wax ka dambeeya waxba lama cuni karo. waa sidoo kale un markaa bishu ramadaan araggeedu waa mid qof keliya ayay inagaga filan. walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. su-aasha labaad aynu isweydiinaynaa waxay tahay, markan alle ina yidhi arka, rasuulkii ina yidhi arka, araggaasu waa marka halkee laga arko wey. waxaynu ihi waa qof keliya markuu arko, laakiin qofkaa keliya haddii uu joogo New Zealand ama Australia, adduunyada dhinaca u baryaysa ama dhinaca u galbeedaysa, qofkii arkay hadduu barigaa adduunyada ugu kooneeyo joogo, kii meesha ugu galbeedaysay joogay Maraykan iyo Australia, maxaan leeyahay ay ka mid yihiin Maraykan iyo Canada, ma ku soomaya mise kuma soomayo weeye su-aasha labaad. culimmadu way isku khilaafeen. qaarkood waxay yidhaaheen, mar haddii ummadda muslimka ah qof caadil ah oo lagu kalsoon yahay araggiisa uu arko, ummadda oo dhan meel kasta ay adduunyada korkiisa kaga nooshahay waa inay soonto. waayo bishu waa bil keliya, adduunkay u dhalatayna waa adduunkaa aynu ku nool nahay. sidaas darteed waa inay kulligeen aynu soonno ayay culimmada qaar leeyihin. kuwaa waxaa ka mid ah imaam axmed iyo abu xaniifa radia allahu canhu raximahumullah. waxay daliishanayaan aayaddii aynu soo sheegnay, ilaahay yidhi faman shahida minkum ashahra falyasumhu. qofkii idinka mid ah, ciddii idinka mid ah bisha aragta waa inay soomto, oo macnaheedu yahay markaa aragtaan sooma. rasuulkiina muxuu ina yidhi sumuu lira'yatihi waftiruu lira'yatihi. arag ku sooma, aragna ku afura. idaa ra'aytumuuhu, xadiid kale oo isaguna muttafiq calayha, rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh, idaa ra'aytumuuhu fasuumuu waidaa ra'aytumuuhu faftiruu. mar haddii aad aragtaan dhammaantiin sooma. ra'aytumuuh, haddii aragtaan sooma. haddii aad ta kale ee shawaal aragtaanna soonka joojiya buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam. iyagoo aayadda iyo axaadiista labada mid ah iyo qaar kale daliishanaya, sidaasay aaminsan yihiin. balse culimada kale oo badan ayaa waxay leeyihiin bishu mar uma wada bilato adduunyadan aynu ku nool nahay. oo haddii bishii Australia iyo New Zealand laga arkay, ma dhici karto in laga arko Afrika mararka qaarkood ama kuwa ka sii galbeedeeya ee Canada iyo America. waayo adduunyadu waxay leedahay mataalic kala gedisan. macnihii bishu waxay u bilataa
meelo kala gedisan oo dhulka ka mid ah wakhtiyo kala gedisan. sidaas darteed madlac waliba qolo kasta oo habeen wadaagtaaba maalan waxa weeye soonka mar bay wada bilaabayaan marna way wada joojinayaan bay leeyihiin culimada qaybta labaad. kuwa waxa ka mid ah imaam shaafici, shaykhul islaam ibnu taymiya, imaam an-nawawi iyo salafu saalixi ka horeeyay in badan oo ka mid ah. daliilkay daliishanayaana waxa weeye xadiidka laga soo wariyey Kurayb raximahullah radiyallahu anhu wa arda oo yidhi waxaan u safray buu yidhi Shaam, ramadaantii baa iigu soo gashay, dayixii baa la eegay, waa la arkay, Mucaawiya arkay, dadkii kale way arkeen, dabeetana waa la soomay. maalinta habeenkaasuna la arkayna waxay ahayd habeen jimcaha. dabeetana bisha wuxuu yidhi Kurayb dhammaadkeedii ayaan soo noqday oo aan Madiina ku soo noqday. tan Cabdullaahi ibnu Cabbaas baa i weydiiyey oo yidhi goormaa aragteen, goormaa soonka bilowdeen? waxaan ku yidhi habeenkii jimcihii oo cid waliba aragtay, Mucaawiyana arkay, dadkiina way ku soomeen. wuxuu yidhi ibnu Cabbaas radiyallahu canhuma لكننا رأيناه ليلة السبت أنه وحن أرقنا هبينك سبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. sidaas darteed annagu habeenkii sabti dib aanu aragnayo ilaa aanu 30 dhamayno ama bisha Shawaal aragno joojin mayno buu yiri. Kurayb baa wuxuu yiri waxaan idhi ala taktafi bi ru'yati Muawiya, miyaanay kugu filayn aragtidii Mucaawiya? wuxuu yidhi ibnu Cabbaas radiyallahu canhuma haakada amaranaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, sidaasuu nagu amray rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam. hada xadiisun saxiixun akhrajahu muslim, waa xadiis ku sugan saxiix muslim. labadaa culimo ama labadaa ra'yi ka xooga badani wuxuu yahay kaa odhanaya madlac waliba wuxuu leeyahay goor ay bisha u bilato. waayo Cabdullaahi ibnu Cabbaas radiyallahu canhuma waa xabrul umma, waa ninka lagu naanayso, waa bad cilmi ah ama cilmigiisu waa bad weeye. waxa weeye tafsiirkiisu ama aragtidiisu ama fahamka uu fahmayo xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo aayadaha qur'aanku waxa weeye ka saxa ah ee loo baahan yahay haddaynu helno ra'yi ay sheegeen ama faham ay inoo sheegeen salafu saalix, khaasatan asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. fahamka saxiixi waa kaa weeye oo aan dhanna looga qaadayn. sidaas darteed labada ra'yi ka saxa ah wuxuu yahay midka fahamka ibnu Cabbaas radiyallahu canhuma ku salaysan weeye. su-aasha saddexaad aynu isweydiinaynaa waxay tahay haddii uu qof arko bishii oo dabeetana uu u tago qaadigii ama culimadii ama amiirkii oo yidhaaho waan arkay, balse la rumaysan waayo dadkii uu sheegay, amiirkii culimadii ayaa rumaysan waaye, qofkaasu ma soomayaa? aragtidaa uu arkay isagu ma ku soomayaa mise ma soomayo? culimmadu waxa weeye waa laba qaybood. qaybi waxay yidhaahdeen dadkuu la soomayaa. waxaa ka mid ahna qaybtaas imaam Axmed ibnu Xambal, ibnu Taymiya, culimadan dambe ee dhowaan maxay ahayd dhimatayna waxaa ka mid ah Bin Baas baa ka mid ah ra'yigaa cidda qabta. hase yeeshee jamhuur alculamaa, culimada badankoodu ama intooda badani, culimadu waxay qabtaa laba ra'yi oo kala gedisan. midka hore waxa weeye dadka ayuu la soomayaa oo kelidii soomi maayo. culimadaana waxaa ka mid ah Axmed, waxaa ka mid imaam Axmed, waxaa ka mid ah ibnu Taymiya, waxaa ka mid ah culimadii dambe ibnu Baas raximahumullah.
culimada qaybta labaadna waxay leedahay wuu soomayaa qofkaasu maadaama uu arkay wuu soomayaa waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaa uu ina leeyahay wuxuu yidhi faman shahida minkum ashahra falyasumhu ciddii idinka mid ay aragtaa waa inay soomto wey midda labaad culimadaas waxay daliishanayaan horta culimadaa waxaa ka mid ah imaam maalik abu xaniifa imaam ashaafici iyo riwaaya can axmed ibnu xambal intaasuba waxay qabaan iyo culimo badan oo ka horeysay iyaga waxay qabaan inuu qofkaasu soomayo oo aragtidaa u arkay siduu alle yidhi iyo rasuulkiisu ay ku soomayaan culimadaasu waxay leeyihiin dambe qaybtaa labaad waxa weeye qofkii haddii uu arkay wuxuu soo gelayaa amarkii caamka ahaa ee ilaahay bixiyey man shahida minkum ashahra falyasumhu waa amar caama wuxuu soo hoosgelayaa amarkii caamka ahaa ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yidhi sumuu liru'yatihi wafturuu liru'yatihi waxay leeyihiin oo kale culimadaas qofkii haddiiba uu arkay cid kale oo ka joojin kartaa ma jirto ila ilaahay baa isagii mas-uul ka dhigay waxaynu ku bilownayna inaynu nidhi waxa weeye in dayaxa la arko waxa weeye fard kifaaya haddiiba uu isagii arkay dadkii aan arkin isaga uga dhow oo maxay ahayd amarkiisu uu xaasil yahay kagana kalsoon yahay dad kale oo aan arkin sidaas darteed qofkaasu waa inuu soomo waa inuu ku soomo aragtidaa uu arkay waalcilmu cinda allah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh